Dagaalkiisii khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Wararkaan ka helayno deegaanada Cabdile Biroole iyo Taabto oo ka tirsan Jubbada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada Kenya oo ka tirsan AMISOM iyo xubno ka tirsan Al-Shabaab saacadihii lasoo dhaafay oo ka dhacay halkaasi. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan xarakada Al-Shabaab ay weerareen saldhig ciidamada Kenya iyo kuwa Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanada Taabto iyo Cabdile Biroole ee gobolka Jubbada Hoose, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal muddo saacada socday. Goobjoogayaal ku sugan halkaasi ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa madaafiic culus ay isku ridayeen ciidamada Kenya iyo kuwa xarakada Al-Shabaab, balse aysan si rasmi ah u caddeyn karin khasaaraha kala gaaray labada dhinac ee ku hardumaysay halkaas. Wararka ayaa waxaa intaasi ay ku darayaan in intii uu socday dagaalka ay sidoo kale ciidamada Kenyaanka iyo Al-Shabaab madaafiic ay isku weedaarsadeen, taas oo khasaaro nafeed iyo mid hantiyeedba aysan gaarsiin dadka shacabka waxba galabsan, islamarkaana lagu dul dagaalamayo. Wararka laga helayo deegaanadii lagu dagaalamay ee Taabto iyo Cabdile Biroole dhammaantood ka tirsan Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ay iminka ay ku sugan yihiin ciidamada Kenyaanka iyo kuwa maamulka Jubbaland, islamarkaana halkaasi ay ka wadaan howlgallo. Ma ahan markii ugu horeysay weerarada ceenkaani ay ka dhacaan deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan maamulka Jubbaland gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose waxaa ka dhacaya dagaallo culus, kuwaas oo u dhexeeya ciidamada maamulka Jubbaland, kuwa dowladda Soomaaliya iyo kuwa Kenya isku dhinac iyo xarakada Shabaab. Waxaa sidoo kale gobolka Jubbada Hoose xilliyadii ugu dambeeyay ka dhacayay duqeymo dhanka cirka ah, kuwaas oo geysanayeen ciidamada bangarafta dowladda Soomaaliya oo taageeraya Mareykanka, kuwaas oo lala beegsanayay xarumaha ay ku sugan yihiin xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab.